بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة سمكودرس وأنا قاعد فتح عبد الله كورسكين برشة أساسية رياكت جي اس قيبتنا راح نكسر قاعدة سيد الله استعماله أما أساسية رياكت كونتكست قيبتنا حان سيفض لنا قاب كهورا عن كونتكست جوادي سنشني ما دام أي تهاي قاب يردير أما استعماليان رياكت ريندر بروبس وقاب يرا كومبليكيتد مركا سأنو واديك سنو قاب كعصب marka reactive versionada dambe waxay noogu soo dartay hook la dhaho use context so hookena halkan ugu yeedhina context waa named imports use context marka adeegto variable ayaad u qaadanaysaa waxaan bixinaa tusaale theme use context hooken la dhaho kaaso oo aad dhexgelinaysid ama isticmaalaya as argument theme context-geeni marka halkan oo kale hadii ku jirto authentication context use context kana soo qaadanaysaa kabacdina hoostiisa soo kale authentication context ayaa dhigaysa that's why mar walba ugu baahan tahay inaad context-ga sheegtid aad isticmaalisid waayo systemka wax ka koobnaan kara context-yo badan buu ka koobnaan kara inta markaynu sameeyno hadda probiskan ma baahnin waa iska saarina waxaynu adeegsanaynaa theme context-gan waliba hadda magaca ka bedelo si aad u ogaatid inay noo shaqeynayso waxaan bixinayaa from hook meel walba halkan theme inoo ah waxaan ku bedelaynaa theme from hook so haddaan save garayo still wax walba inoo shaqeynayaan that means hadda uma baahnin inaynu isticmaalno component-geena la dhaho consumer-ka iyo function-kiisa so intaas waa la kacayaa kabacdina xiritaanka iyo function-ka xiritaankeedina waa la kacayaa haddaan hadda tijaabiyo save dhaho wax walba sidoodii ayay u shaqeynayaan waxaan ku soo celisanaynaa variable-keena theme nice inta waynu sameynay waxaan kala rabnaa inaynu tijaabino bal navigation-keenan inaynu u adeegsano context-ga maadaama aynu hadda ugu baas kareynay probe ahaan sidan waa caadi maadaama aysan nested ahayn laakiin context-gana ayaan ka faa'iidaysanaynaa labadan probes aynu u baas kareynay navigation-keena hadda uma baahnin waa iska saaraynaa kadibna waxaan tegaynaa navigation-keenii probeskan aynu u yeedhnayna ama destructure garaysnayna isna waa iska saaraynaa waxaan adeegsanaynaa sidii aboodkii oo kale oo aynu soo koobi garaysanaynaa theme context ayaynu soo import garaysanaynaa sidoo kale waxaynu soo import garaysanaynaa hooken looran jiray use context maadaama aynu qaab fudud baranay ugu dambayna variable-keena kanoo kale ka soo qaadanaynaa variable-keena la dhaho theme halkan ayaan keenayaa wax walba way noo shaqeynayaan marka laga yimaado function-ka la dhaho change theme maadaama aynu halkan kaliya u soo baas garanay theme oo aynu function-kan aynu u soo baas garayn laakiin function-kan hadda waxaan si ku meel gaar uga dhigayaa true oo kale soo celiso soo haddaan kan save garayo aan index-kana save garayo waxa isma bedelayaan inta markanu ka nimaano waxaynu u baahanahay inaynu function-keena soo raacino context-ga so value-gan meesha aynu variable soo raacinay object aynu ka dhigaynaa object-gaas oo wada theme iyo change theme function-keena looran jiray maadaama hadda object tahay oo aynu u baahanahay inaynu dhex galno aboodkeena oo kale ku dhex galno haddaan save garayno cilada ayaa dhacaysa waayo aboodkeenan wuxuu raadinayaa theme context-giina hadda wuxuu inoo wadaa object marka waxaan samayn karnaa halkan dot theme aynu dhihi karnaa so haddaynu save garayno aboodkeena wuu inoo shaqeynayaa ama destructure ayaynu ku samayn karnaa theme-kan halkan leenahay destructure ku samee aboodkeena wuu inoo shaqeynayaa laakiin navigation-keena ayaa cilada weli ka jirta waayo theme lama yaqaano theme-kan destructure ayaynu ku sameynayaa save markaan dhaho weliba si fiican refresh gareeyo wax walba way shaqeynayaan waxaan kaloo u baahanay change theme inaan ka soo qaato provider value oo object ah so theme iyo waliba change theme ayaan u baahanay inaan ka soo qaato magaca u bixina xawee change theme yes so meeshan aan adeegsano change theme save wax walbana sidoo ay u shaqeynayaan inagoo isticmaalayna markan context marka waxaa kaloo samayn kartaa oo aad ku soo dari kartaa context-yo badan tusaale authentication context oo kale ku soo dari kartaa insha Allah casharka dambe waxaan refactor garaynaa context-geenan sidoo kale waxaan isku dayi doonaa inaan context kale bal ku soo darno
oo inoo qabanaya user authentication aad iyo aad iyo mahadsantiin wabillahi tawfiiq